Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta qaaliga muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka aad loogo aad gacantaada ku sawirta adigu bedeli lahayd loogo caadi ah adigoo isticmaalaya Adobe Illustrator. Marka kusoo dhawaada mowduuceena maanta. Ugu horeyn soo fur Adobe Illustrator. Marka waxaad ka doorataa cabirka aad u baahan tahay inaad wax ku sameydid. Hadda waxaan dooranaynaa 220 by 1080. Kadib waxaad doorataa File, kadib Place. Kadib waxaad soo doorataa sawirka aad gacantaada ku sawirtay, kadib Place dheh. Kadib waxaad ku soo jiidaa screen-ka aad ku soo jiiday. Marka screen-ka aad la ekeedo opacity meesha ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa. Marka aad yareynaysaa waxaad geynaysaa inta aad u baahan tahay. Tusaale ahaan oo kale hadda u baahan tahay 70 ama 50 ama 80. Aniga hadda waxaan geeyaa 70 ama 85 meelahaas oo kale. Markaan geeyo waxaan tagaa object, kadib waxaan leeyahay lock, kadib object markaan tago waxaan leeyahay lock, kadib waxaan leeyahay selection. Marka intaas dhaho waxaan imaaha meesha cadaanka ayaan soo furaa, kadib waxaan ka dooranaa qalinka guduudka, kadib haddana meesha ku xigta ayaan soo furaa, waxaan ka dooraa kalarka aad u baahan tahay. Marka kalarka u baahan tahay aad soo dooratid, hadda waxaa ka dooranaysaa toolkaas ay farta ku sawiran tahay. Markii aad ka dooratid waxaa imaanaysaa waraaqadii aad soo sawirtay, kadib geesa ayaa dhibcaha ka saaraysaa. Markii aad geesaha dhibcaha ka saarto waad la ekeynaysaa, waa aad ku simaysaa. Markii aan dhammeeyo ayaan isku soo laabanaynaa.
hadda saa u wada jeedaan waan dhameeyey. Marka waxaan sameynayaa, waxaan leeyahay select all markaan dhaho waxaan leeyahay right click, kadib waxaan leeyahay group markaan sameeyo waxaan leeyahay waan jiidayaa, marka screen qaybtiisa kale ayaan geynayaa. Marka screen qaybtiisa kale geeyo waxaan rabaa inaan waraaqadan iska bixino, uma aan baahnin waraaqada ayaan dul imaanayaa. Waxaan leeyahay right click markaan dhaho waxaan leeyahay unlock, kadib waxaan leeyahay linked file. saa u jeedid hadda unlock waa ugu sareysaa. Unlock markaan ku dhufano waxaan kusii dhufanaynaa linked file, kadib waxaan leenahay delete. Markaan delete dhahno waxaan soo jiidaynaa bahashii aan sawirana aan u baahnayn, screenka dhexdiisa ayaan keensanaynaa. saa u jeedaan qaybtan sare waa meesha laga saarto kalareynta. Marka waxaan leenahay select all, marka waxaan sameysanaynaa, waxaan saaraynaa kalar allaala kalarkii aan u baahanahay. Markii kalarka aad u baahantahay aad ka dooratid, tusaale ahaan oo kale waa kalar aad iska saaranaysaa kalarka adig ku qanciyo. Marka kalarka aad saarato waxaa imaan haysaa file markaa imaato waxaa leedahay export markaa imaato waxaa leedahay save for web markaa imaato. hadda meeshan wuxuu kaa tusaa qaabka loo save soo noqon doono backgroundkiisa cadaan. marka noqoto waxaa imaan meesha ay ku qoran tahay GIF, waxaan ka dooranaa JPG, kadib waxaan leeyahay save markaan dhaho wuxuu tusaa meesha ku save lahaa. waxaan leeyahay save, kadib waxaan leeyahay yes markii aan dhaho waxaa imaaha wuxuu geeyaha meesha oo ku save madeen pictureska. markaan imaado meesha ay ku save madeen aan kasii doorto meesha uu ku jiray. saa u wada jeedaan waa kaasa sawirkii aan hadda saafnay. hadda tusaalahaan oo kale haddaan aan tusakii hadaaye sawirka markii hore saa u jeedaan saas oo haddaan waxaa inii soo dhaweeyo haddana saan ayaan ka dhignay. marka mawduucina maantaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.